marka khilaafkayga dhamaan waayay oon dee anigana hinaasa igu dishay iyo murugo iyo dhibaato waxaan doonayaa inaad facebookaaga siiso annakaygaan ku siiyo si balaan kalsooni uga dhex baadhno inantii markii facebookay aan baarbaaday waxaan la kulmay waxyaabo la yaaba waxaa ka mid ahayd inantani kumaanan arkin ragay xidhiidh la leedahay arrintii wuxuu yihi waxay igu noqotay arrin kale oo murugo ah iyo welwel ah aad baanu isugu qabsanay sheekadii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا داود يال سود وهذا ومركلة إيه ولكن هذا كرامة ألقى طبعا قفير سنة سنة وبرتان يوتيوب ككل هذا كرامة هدي أي تاي مركو جور رسالة صوب وقد تفضل سبسكرايب تنقول شرف السلام مركان الريح كان بلالك عاسي كوسو جران مقلدة يدعون كردوان يحيسها له يعني هل كان كوسو جد بينه هدي أدخل إنه لشوكتنا عادي عاد بدو ما سنتها يكون يكوتشر مدح أياد إنه صارنتها لكن مقالك لايكتا كوسي قبا أو لايكتا كوبابا si uu u baaho oo bulshada u gaadho haddii aydan weli sidoo kale markaasi soo raacin oo ku soo biirin oo soo follow garayn barahayga kale ee bulshada sida TikTok-ga iyo Facebook page-kayga oo labadaba ay ku qoran yihiin aadan karaama waad soo follow garayn kartaan aad iyo aadna waad u mahadsantihiin halkan sidoo kale waxaan kusoo gudbinaa barnaamijyo xiiso leh daawadayaal waxaan halkan idinku hayaa sheeko cajiib runtii oo ku saabsan nafsiga iyo xumaanta qof bili aadan oo daacad ku ah aad u geysato yacni waxa laga dhaxlo iyo cirib dambeedkeeda waa gabadh reer Hargeysa ah oo si xun oo aad iyo aad u fool xun u lagoysay wiil reer Muqdisho ah balse ku noolaa waddanka Holland iyaduna markaas waxay ku noolayd magaalada Hargeysa khiyaamadii iyo maxaa kuu sheegay dhagartii ay u maleegtay iyo qaabkii ay ula dhaqantay ninkaasi sheekada oo dhammaystiran halkan ayaan muuqaalka idinku hayaa isagoo dhammaystiran hordhaciisina waad soo aragteen baan filayaa marba haddii aad halkan marayso muuqaalka bal aynu wada fiirsanno muuqaalkaas oo dhammaystiran kadibna aynu markaa isu soo noqonno oo wixii aynu ka dhihi karnay kaga falcelin karno markaasi aynu kaga falcelinno aad iyo aad baad mahadsantihiin muuqaalka kusoo dhawaada oo aynu wada daawan qisadani waa qiso ku saabsan qof kasta oo nafsi gala marka saami waxay idinka digaysaa in nafsiga gashaan waa tahay rabiirow sheekadani aan noo haya sheeko maha si waa qiso jacayl qisadan waxay la soo wadaagay inaan ka mid ah daawadayaasha ku xidhan sheekooyinka ama qisooyinka CBA sheekadani waxay u dhacaysaa sidatan wiilkani wuxuu yiri waxaan deganahay waddanka Netherland waxaan xiriir wadaagnay gabadh joogta waddankii Soomaaliya gabadhii muddo badan ayaanu xiriir lahayn muddo waxaanu xiriir lahaano waxa jira caqabado badan oo soo wajahay balse aanu markaasi aanu ka gudubnay oo aanu ka baxnay baa jirtay waxa dhacday khilaafkayga uu dhamaan waayay oo uu soo abjarmi waayay waayo waxaan arkay inantii inay inta u badan waqtiga ay mashquulsan tahay oo aanay aniga siinine dad kale ay siiso oo markasta ku galaydo kul ku jirta waxa dhacday inantii inaan marka khilaafkayga dhamaan waayay oon dee anigana hinaasa igu dishay iyo murugo iyo dhibaato inantiina jacayl aan u qaaday meel aan ka noqdaana aanay jirin baa waxa dhacday in aan inantii idhaahdo waxaan doonayaa inaad facebookaaga siiso annakaygaan ku siiyo si balaan kalsooni uga dhex baadhno kabacdi inantii ma doonaysa iyada lafteedu inay iga hadho oo waayo iyada lafteedu rabitaan bay ii muujisaa iigu jira waxa dhacday in aan inantii facebookii ay siisay annakaygii aan siiyey inantii markii facebookii aan baarbaaday waxaan la kulmay waxyaabo la yaaba waxaa ka mid ahayd inantani kumaanan arkin ragay xidhiidh la leedahay oo xidhiidh jacayl ay la leedahay balse waxaan ku arkay rag badan oo ay asxaab yihiin kabacdi rabiirow inantii wuxuu yiri raggan ay la xiriiraysaa inta u badan waxay kula hadlaysaa kol midkiiba saacad 2 saacadood iyadoo ku hadlaysa ayaan arkaa arrintii wuxuu yiri waxay igu noqotay arrin kale oo murugo ah iyo welwel ah aad baanu isugu qabsanay sheekadii inanta waxaan weyn wada hadlaynaa ma doonayo raggan aad la hadlayso ee aad waliba koolka kula hadlayso waxaan doonayaa haatan raggan aad leedahay asxaab aan nahay iyo walaaltinimo naga dhaxaysa in aad samayso qoraal inaad kula hadasho taasoo aan ka dhex baaraya buu yiri
bal inaan ogaado inantan iyo wiilashan ay la xiriirayso walaaltinimada ka dhaxaysa waa mid nooceeya oo aan arko waxay ku wada hadlayaan. waxa dhacday inantii inaanu sheekadii markasta aanu ka heshiinay nagu soo noqoto oo aan arko inantii oo koolal badan diraysa oo raggii la hadlaysa qoraal haday kula hadashana markaasi masaxaysa arintan masaxaada baa haddana igu sii noqotay buu yiri arin kale oo la yaaba oo kalsooni darro iyo werwer iyo dhibaato kale igu sii abuurta inantii waxay noqotay heer in aan ka haro oo aan jacaylkeedii gooyo ama in aan inantii toos aan ula xiriiro wax kastoo tahay aan ku qaato. waayo markastoo ay la hadlayso inanta igama muuqato inay tahay qof xiriir la leh qof kale. haddii aan siraado xiriirka dhexdeeda yaalana gabagabe markasta dee waxay iga beri jirtay inaanan xiriirka ama ii soo bandhigi jirtay inaanan gabagabaynin balse ay wax ka bedeli doonto sidan ay u dhaqmayso. waxa dhacday sheekadii oo sidii oo aanu sidii isugu muransannahay aananu deqriya qaris la taaganahay balse sheekadiina aanay deynin waagi bariyana ay leedahay waan deynayaa baa waxa dhacday in aan iraahdo wadankii baan tegayaa oo aan wadankii Soomaaliya aan imaado. haddii aan imaaday waxaan filayay inaan u iman doono inaan jacayl igu jiro iyo rabitaan waxaana go-aankaygu ahaa in aan nolol dhisto. waxa dhacday inantan waxa jiray hablo badan oo asxaabteeda oo ay markaasi bartay oo ila soo xiriira oo aan la xiriiro baa jirtay. maalinkii aan airportka ka soo degay baa wax dhacday inantii taleefankeedii uu dansan yahay way xiratay magaaladii baan imi waan joogay anigu isla gobolka anigu tagay buu yiri Rabiro inantu anigu maan dhalanin anigu waxaan ahay reer Muqdisho inantuna markaas waa reer Hargeysa buu yiri Hargeysa cid kale kama aqaano aan asxaabteedii iyada ahayn asxaabtana iyada un baa bartay markaasi waxa dhacday inaan inantii lambarkeedii waayo oo inantii meel alaaliya meel ay ka baxday aan waayo. haddii aan asxaabteedii la xiriiray waxa dhacday qaar taleefanka igu jara qaar igu dhiga qaar iga xidha inay noqdeen. wuxuu waan la yaabay arintan cajiibka ah meesha ka socota maxay tahay. wuxuu yiri inantan show dadkani waxa jiray sheeko aanan anigu la socon balse iyagu ay la socdeen. sheekadaas oo ahayd inanta inay xiriir lahaayeen wiil wadanka jooga oo ay markaas is jeclaayeen laakiin si Facebook iyo intan aan ka hayo aan kala xiriirin balse ay ka xiriiraan koolka caadiga inankiina markaasi ay guur oo u soo bandhigay inankii kala laftiisu inantiina sidii ay isku guursan rabaan oo meherkoodii uu soo badhow yahay. wuxuu arin la yaab bay ugu noqotay wadankay aan ka shaqaysanayay waan ka yimi wadankaygii aan u dhashay aan ku korayna ma joogo. waxay igu sii noqotay arin kale oo mucjiso ah oo dareenkeeda leh. wuxuu yiri muddo markii aan joogay waxaan asxaabteedii aan ka codsaday in inanta leela xiriiriyo balse waa la jooqi waayay. waxa dhacday buu yiri marka arkay wax iiba jooqi waaya in aan inantii hablay bartay markaa buu yiri asxaaba hablihii inan kamida inaan xiriir la leh bay sheekadu la sheekaysay uga sheekaysay. ka bacdi inankii baa lambarkeygii inantii ka soo helay wuu la soo xiriiray wuu igu qanciyay inay sheekadaasi sheeko dhamaatay ay tahay inantuna inta ay igu waday khiyaamo iyo dhibaato iyo inay aniga markaasi iga hesho adduun balse aan igu laba soconin wax xiriira inay la wadaagto. waxay ahaato waan iska tagay buu yiri Muqdisho tagay de halkii bay bahliyo caashiq iyo dhibaato iyo murugo ay iiga bilaabantay iyo maalmo mugdiye balse waxaan tii ku jiraba waan noqday wadankayga baan ku noqday. waxa dhacday wadankayga markaan ku noqday muddo sanad ayaa ka soo wareegtay inanta way la soo xiriirtay. ka bacdi markay la soo xiriirtay waaba inantii iyo hal ilmo wadata balse ninkii qabay oo intii uu guursaday uu kaba tahriibay iyadoo markaasi uur leh. markii uu tagayna uu furay oo ku yiri warqadaadii baan ku siiyay. wuxuu waxaan aaminsanahay markaa inantaas dhibaatada la gaarsiiyay inay tahay nafsiga aniga markaasi ay iga gashay
iyo adduunkaygii dadka kale ay ku qancinaysay iyo beentii ay igula socotay iyo khiyaamadii wuxuu sidii markii wixii ay ahaato waxaan ku inantii imka nin mustaqbal kale iyo hadaf kale leh waanahay hebelkii aad taqaanid malihi ma ihi de waqtigii wuu isbedelay ana waan isbedelay dabcan marka de waxaan ku oran lahaa waxba kuma hayo si waxba kulama qaban karo hadda nolol kale raadso de wuxuu yidhi inantii sidii baan iskaga farsameeyey oo aan ku diray duluucda sheekadani ama qisadani waxaynu tusinaysaa iyo dhibaatooyinka uu leeyahay. waa tahay daawadayaal waxaan filayaa inaad markaasi muuqaalkaasi aad ka bogateen waxaa layidhi god hadimaha qodin haddaad qodana ha dheerayn ku dhici doontaana ma ogide gabadhaasi nin kabteeda tolaya ayay karintiisa goynaysay nin iyada u soo jeeday oo maxaan kugu sheegayay tiyada ka tirinayay bay ka tagtay oo ay xumaysay oo ay si xun u gashay oo ay khiyaamaysay kadibna cirib dambeedkeeda wuxuu noqday iyadoo nafsigii ku dhacay oo rafaadsan inay dib ugu soo noqoto oo ay weliba ka tugto inay soo celiyo wixii iyaga markaasi ka dhexeeyey isagoo markaasi waayihii mugdiga badnaa ee uu galay ka soo kabtay islamarkaana nolosha horey uga sii socday. marka ujeedku ma aha in gabdhaha qura ay nabsi galaan, qof kasta ayaa nabsi geli kara, laakiin waxaa badan iminka gabdhaha sida gabadhaas oo kale sameeya khaasatan kuwa wadankii jooga gabdhaha wadankii jooga khaasatan way sameeyaan arrintaas. marka muuqaalkani waxaan idinku soo gudbiyey kaliya inuu idin noqdo wacyigelin ahaan waxyaabaha qaarkood inay hadhow adiga gadaal kugu soo noqonayaan oo qofkan bini'aadanka ay wax kaa soo gaarayaan. leanna hadduu qofka bini'aadanka wiil iyo gabadh ku doona ha ahaada uu daacad ku yahay qalbigiisa uu ku siiyo adiguna aad khiyaamo ku wado mid aad adigu daacad u tahay baa adna khiyaamo kugu samayn doona oo kulu goyn doona oo kabtaada goyn doona. marka halahaas ayaan waanadan kusoo gabagabayn lahaa. waa walaalkan aadan karaama haddii ay tahay markii ugu horreysay aadna soo booqato fadlan subscribe inoo saar isla markaan riix kambaraalka casi ay kuu soo gaadhaan muuqaalada iyo dhacdooyinka kala duwan ee xiisaa leh aan halkan soo gelino. haddii aad horey inoola joogtayna aad iyo aad baad u mahadsan tahay 1 jeer madaxaad inoo saaran tahay muuqaalka like-ta ku sii qaba si uu u baaho bulshada u gaadho. haddii aadan weli soo raacin barahiga kale ee bulshada ee facebooka iyo tiktokana fadlan soo farow gareeya oo halkaana isugu keenkeena iyagana waxaan ku soo gudbin doonaa muuqaalo kale oo xiiso leh iyagana dhammaantood waxa ku qoran magacayga aadan karaama. tan iyo intana muuqaalkan mid lamada ku kulmayno waxaan kaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.